بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله سوماليد ميلاد جوجتان بإلهي سبحانه وتعالى دي كوان ما ييلو عدي دبنبك الله كقادو عدي دن الله وفي انت باهن الله ديقو انت بوقتا الله بوقسيو انت ديمتي الله ونحريستو والدينتين الله ونحريستا انغنا الله نوغا دبا نحريستو دالكا دينتا ددكا iyo dawladnimadaba ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlayaa saddex qodob. twitterkii maraykanku uu soo saaray iyo ujeedada laga leeyahay kelmadaha ka oranaya. qodobka labaad, Suudaan oo Soomaaliya dacwad ka keeni doonta officially Security Council-ka ku saabsan boosaaso kelmadan ka oranaya. qodobka saddexaad, iscaashaqa Ciro iyo Dani iyo hadalka Juxa iyadana kelmadan ka oranaya. waa markii koowaad maraykanku hadalka uu soo qoray wuxuu leeyahay stakeholderskii oo dhan waxay xaq u leeyihiin inay ku yeeshaan talo wax alla wixii isbedela oo lagu sameeyo laba arrimood. Pay attention, laba arrimood si fiican u dhageysta. qodobka koowaad, federal buu yiri, federal. qodobka labaadna wuxuu yiri election systemka. marka election systemka garanayo waa tiimkii uu Xasan magacawday oo isagu iska lahaa arbiter ana ah gamekana waa ciyaar cidi ka yeeli mayso. waa inta waana wax sax. qodobka xagga iga dhig. qodobka aan rabay inaan ka hadlo waa qodobka labaad oo federaalka. maxaa loola jeedaa? Muuse ka yimi background baa idin siinaya. horta wuxuu ka yimi hadalkan dacwad ka tagtay Somaliland iyo Dani. Somaliland qolo lobbyist oo ah Mareykanka joogo oo Donald Trump ku dhow baa ka shaqeeyay in kelmadda laga hadlo. Danina laba jeer buu hadlay. mar wuxuu la hadlay safiirka Ingiriiska, wuxuu kala hadlay imaanshii Xamse in la joojiyo la baajiyo. marna wuxuu la hadlay madashii kadib safiirka Mareykanka wuxuuna ku yiri SSC Khaatumo oo la aqoonsado waxay carqalad iyo caqabad ku tahay federalism. imise jeer horaan idiin sheegay Dani idinma taageersana hadaatiin SSC raallina kama aha. dagaalkana markii uu arkay dadkii oo qabiil saa u soo galay buu isdaad raaciyay. imisaan idiin sheegay raalli kama aha gooja cad in laga saaro. haddaan waxaan idinku darayaa hadal weli aan dadayo oo sarbeeba oonan sheegayn oo caddaynayn. isagaa fahmaya markuu maqlo. Dani iraada male. hadday timaado imaaraadku hadday ku tiraahdo hooyadaa dil, Dani waa dilaya. hadalna kuma celin karo sababa jira awgood. arrintan imaaraadka ka dambeeya. imaaraadku muxuu u diidan yahay SSC Khaatumo inay dhisanto? wuxuu u diidan yahay 4 wadan baa loo qaybiyey sida Security Council-ka taqriirkii la geeyey oo panel of experts ay geeyeen oo 90 warqadood ah oo hadda ka hor aan ka sheekeynay uu ka hadlay qirayo cadeeyay. 4 wadan waa Ingiriiska iyo Norway iyo Imaaraadka iyo Turkiga. shirkadaha 4 wadan ka socda ayaa loo qaybiyey oilka iyo gaaska ku jiri kara goboladii SSC ay ka mid ahayd ee Somaliland la isku dhigi jiray. hol oo la og yahay inuu gaas ku jiro waxaa la siiyey Imaaraad iyo Norway. areadaas SSC ay degan tahay. hadda ka hor baan ka sheekay blood money, dhiigga la daadinayo dadka la leynayo waxaa loo leynayay oil bay ahayd. dadkaana in meesha laga qixiyo laga saaraa la rabay. dalku ma guurey, dadka guure iyo dabdaradaas iyo disputed area iyo Ingiriisku ay wadeen halkaasi ka socotay. Dani imaaraadku iyagaa iska leh. asad ay leeyihiin way kelmad kuma celin karo. boosaaso waxa ka dhacaya oo ay ka mid tahay boqolaal qof oo Colombian inay yimaadaan oo markaa lagaga duulo diyaaraduhu ay ka soo degaan imaaraadka inta ka yimaad base ay ka dhistaan oo intay ka yimaad barbarana way ka dhisteen oo waad aragteen satellite-ka la wareejinayo. intay ka yimaadaan ay soo degaan oo ay ka kacaan oo ay Jaad iyo Suudaan iyo meelaha dagaaladu ka socdo dhan ay boosaaso ka aadaan. kelmad kuma celin karo. waxaa kaloo arrintaa ogol xasan sheekh maxamuud
سادوكتين عدين بان إدين سينية هودا الصومالي ودو حلقة حكومة مقدشو ديارadaha isdegaya hadaysan ogolaansho muqdisho ka haysan mana soo degi karaan intay ka kacaan oo hawadeena isticmaalaan oo sii dhex maraan Soomaaliyana duulaan kuma qaadi karaan Suudaan Xasan Sheikh baa raali ka oo ogol waxaan hadda ka hor idin sheegay maamulada dhan in xukuma kulligood imaarada inay u shaqeeyaan xaqiiq weeye anigu iskama hadlo xog iyo war aan hayaan ku hadlaa waliba nin weyn baan waxbaan qariya inta waxbaan xeerinaya dani isaga ay maqlaya waxa aan xeerinay uu og yahay imaaraadka kelmad kuma celin karo xasanna kuma celin karo kuwaan kalena waa la mid maxaa dhacday marka warqadan federaal waxaa loola jeedaa SSC hadday dhisanto federalismkii baa dhibaato gaaraysaa waa inaad dowladda Soomaaliya pressure saartaa haddaad tahay Maraykan inaysan ictiraafin SSC Khaatumo qodobka intaas ka horeeya reer SSC Khaatumo waxaan leeyahay intaanan ka gudbin qodobka reerayaalow idinkuna cagaar u ka dhiga aad baa u dheeraynaysan dabayl baa noqotay meel walba mid reer SSC ka qaylinaya oo qaylinaya aytamaya garaadadii bay caayayaan isimadii uqaashi bay caayayaan wax garadkii bay caayayaan wax ay xeerinayaan lama arko naago iyo niman bay saa u qamaamaya reerayaalow cagaar u ka dhiga halka shay oo jiritaankiina ku xiran yahay waa wada jirkii midnimada xoog leeydu kuma qabsan karo hadaa midaysantiin laakiin marka kala tagtaan ilaahay muxuu yiri wala tanaazacu فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا هايس خلافنا او هدوديننا مرن يان لا ايمان او markaas awoodiin u tagto oo markaa fashilantaan wasbiru hal dulqaad wadadka odayaashii uqaashi wax garadku waxay ogyiin bay ku hadlaan oo aydan idinku ogeyn markaa ku soo qamaaminina waxa loo socdo fahma wax badan baanu qarinaa oo xeerinayna laakiin dadka wada baan fahmaya goortaanu taabano iyagaana fahmaya dib bayna uga noqonaya markaan anigu hadda leeyahay SSC Khaatumo fadhigi lagu ictiraaf wax badan baan ogahay homework baa loo dhiibay la rabo inuu saa isula meeraysto laakiin markaan ka hadalno xasan inuu cabsado baqo oo dib uga laabtaa laga yaaba waana rajaynayaa inuu ka laabto kana waantoodo SSC-na oo si guud oo rasmi u aqbalo qodobkaasna intaasan ka hor federalismkana danbay u tahay dhib kuma aha SSC Soomaali midnimadeedii iyo xuduntii isku hayn lahayd waa SSC Khaatumo qoladan warsangelina waxaan kula talinayaa inay tashadaan oo ay dadka wax ku darsadaan si aan muranbo u imaan laba gobol ha laga dhigo oo buuxa oo SSC ha lagu daro gobolka kalena ha lagu daro oo warsangeliyo dhulbaante waxa wada dhisteen warsangeliyo رئيس البرلمان puntland ku leedihiin waxa ka qiimo badan idinkoo ku niqaasho ku dooda madaxweyne ku xigeen ama madaxweyne tookaysiya iyo ra'iisul baarlamaan oo la isku tookaysto inaad qaadataan oo SSC aad ka qaadataan taas ay ila khayro waxayna xiri lahayd sheekooyinkii iyo ruwaayadihii imaaraad iyo qashin ay wateen bay xiri lahayd oo soo afjari lahayd kalmada intaas ka ornaya qodobka labaad Suudaan waxa ay ka dacwoonaysaa Soomaaliya dawladda federaalka ah baa jirta wasiirada wada hadlay labada wasiir arrimo dibadood hadalkii in la dhibsaday baana loo sheegay oo Suudaanta waxay sheegayaan Soomaaliya oo aanu ehelnahay oo weligeeyo aanu garab taagnayn oo intay burbursanayeen aanu caruurtooda iyo